السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال. أولا وحان اسكو دردار منا إلهي سبحانه وتعالى عبسيديسا أوصيكم بتقوى الله تعالى وطاعته. وحان نقصو فوض له بشي بركيسنيد اي رمضان. waxaa loo baahan yahay bishaasi in aan farxad ku qaabilno. waxaa loo baahan yahay bishaasi annagoo iscafinay oo uurka aanan uurku taalla iskugu sidin in aan qaabilno. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tastawi alxasana wala sayi'ah udfac bilatii hiya axsanu sayi'ah. ma sinna xumaatada iyo wanaagga ku qaabil walaalkaa, wanaagga ku qaabil. haddii aad xataa xumaato ka tirsanayso wanaagga ku qaabil, xumaatada ayada ayaa ka fiican. walaalayaal, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala amray khudi alcafwa wa'mur bilcurfi wa acrid cani iljaahiliin. qaado ayaa la yidhi, cafiska qaado, wa'mur bilcurfi wanaaggana amar, wa acrid cani iljaahiliin jaahiliintana ka jeeso buu leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala nebiyullaahi moxamed salawaatullaahi wa askaa tasliimaatihi. walaal, ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay asagoo ammaanaya ummatu moxamed kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar. waxaad tihiin ummad kuwa ugu khayrka badan. ta'muruuna bilmacruufi wanaagga ayaad is-amrtaan, wa tanhawna cani ilmunkar munkarkana waad iska reebtaan. sidaa awgeed, maadaama aan nahay ummad barakaysan oo ilaahay subxaana wa tacaala aayad kalena nagu karaameeyey, walaqad karamnaa bani aadam uu yidhi, waxaan karaamaynay reer bani aadam oo annaga ah. ilaahay subxaana wa tacaala si kasta qur'aanka waa noogu sharfay. waxaana rabnaa in si ka daran aan u sharafno oo ka wanaag badan oo ka fiican siduu ilaahay noo sharfay. si u dhiganta maba gaari karnee, si u dhiganta inaan u sharafno ilaahay diinkiisa ayaana la kaga baahan yahay. bisha barakaysan ee nagu soo food leh waxaa loo baahan yahay in aan kaga faa'iidaysanno. waxaa leedahay dembi dhaaf bay leedahay, waxay leedahay waxa weeye naarta ayaa layska xoreeyaa. ilaahi subxana wa taala waxaa ku jirta habeen la yidhaahdo laylatulkhadri khayru min alfi shahrin. habeen kun bilood hal habeen oo ka khayr badan ayaa ku jirta. walaal, qofkii ilaahay gaarsiiyaa nasiib ayuu leeyahay, ha ka faa'iidaysto. muuqaalkaygana qofkii arkaa ha sheergareeyo, ha gaarsiiyo walaalkiis. cafis ku qaabil bishaan haddii aad rabto ilaahi subxaana wa tacaala inuu ku haleelsiiyo laylatulqadri khayru min alfi shahrin. ma la wada helo, waxay ku jirtaa maalmaha, waxay ku jirtaa soomaalidu kinsiga ay u taqaano oo isdhaafdhaafka ah bay ku jirtaa. 21 tobanka dambaa la sheegaa, 21 25 27 29 waxa weye maalmahaas waxa weye tirada waxa weye isdhaafka ayaa laga helaa sida axaadiidta ku cad. marka aan ka faa'iidaysano walaalayaal, ilaahay subxaana wa tacaalaana aan u laabanno, walaalayaasheenna aan cafinno. awalan anaa iska bilaabaya, cid allaala iyo ciddii maalin wax iga sheegtay ama hadal xun ha tiraahdo ama hadal fiican ha tiraahdo, maxaa yeelay waa xan oo ilaahay wuxuu leeyahay waa xan. oo suuratu taqilla waxaa ku jirta laxma akhiihi maytan fakarihtumuuh. waxaad cunaysaa walaalkaa hilibkiisa markii aad xamatid adigoo kahanaya oo waxa weeye hilib meyd qof waxa weye waad cunaysaa. marka walaalayaal, qofkii maalin wax iga sheegay waxaan u cafiyey ilaahay dartii ayaan u cafiyey, iyo fadliga bisha barakaysan oo nagu soo aadan daraaddeed ayaan u cafiyey. waxaan idinkana idinka codsanayaa ilaahay dartii inaad idinkana ii cafisaan sida aan idiin cafiyey, si ka wanaag badan inaad ii cafisaan. cafiska aan dalbanayo waxay u baahan tahay in ummadda soomaaliyeed oo idin la gaarsiiyo. ugu bishaaree walaalkaaga meel kastoo uu joogo inuu abwaan xaraga cafiyey, ilaahay dartiina u cafiyey. shaqsi kastoo muslima oo wax iga sheegana cafiyey, ugu bishaaree. khayr baan idiin rajaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. la wadaag asxaabtaada.